Muddo dheer waxaa loo arkayay mid ka mid ah dimuqraadiyadaha ugu tusaalaha fiican qaaraddan rabshadaha u saaxiibka ah ee Afrika. Dalkan ku yaala galbeedka Afrika wuxuu leeyahay dhaqan gebi ahaanba ka duwan Afrika inteeda kale. Xasilooni maamul iyo xukun rayid oo joogto ah. Waa mid Senegal ka dhigtay mid ka mid ah dalalka Afrika ee ugu xasiloon, kana badqaba siyaasadaha waalan ee qaaraddan caanka ku tahay. Haddaba ku soo dhowaada macluumaad ku saabsan dalkan dhaca galbeedka Afrika. Waxay dhacdaa cirifka ugu shisheeya ee galbeedka qaaradda Afrika, kuna teedsan xeebta badweynta Atlantic. Waa dhul inta badan siman oo carra ciid ah, waxayna leedahay xeeb dheer oo ku teedsan badweynta Atlantic. Senegal waxay ku fadhidaa dhul dhan 196,712 kiiloomitir laba jibaaran, waxayna xuduud la leedahay ilaa 4 waddan, kuwaas oo kala ah Mauritania, Mali, Guinea iyo Guinea-Bissau, halka galbeedkana ay ka jirto badweynta Atlantic. Caasimadda dalkan waa Dakar. Waa magaalo firfircoon oo soo jiidasho leh, kuna taalla jasiiradda Cape Verde ee xeebta badweynta Atlantic. Waa meel ay dalxiisayaal badan u soo dalxiis tagaan, sidoo kalena waa deked muhiim u ah gobolka. Senegal waxaa dadku deganaa tan iyo waqtiyadii hore, waxaana magaca dalkan ee Senegal la aaminsan yahay inuu asal ahaan ka soo jeedo qabaa'ilka Senega ee ku nool waqooyiga Senegal iyo dalka Mauritania. Senegal waxaa ku nool ku dhowaad 17 milyan oo qof. Dadka dalkan badankoodu waa dad da'yar ah. Ku dhowaad 95% dadka dalkan waa Islaam Sunni ah, halka 4 ilaa 5% ay haystaan diinta Masiixiyada. Waxaa jira tiro dad oo aad u yar kuwaas oo haysta diimo dhaqameed Afrikaan ah. Saamaynta Islaamka ayaana ku faaftay guud ahaan gobolkan, waxayna xoog cusub yeelatay dhammaadkii qarnigii 17aad. Senegal waxaa horey uga jiray boqortooyooyin taariikhi ah oo muhiim ahaa. Boqortooyadii Takrour ayaa jirtay qarnigii 9aad ilaa iyo kii 13aad. Kadibna boqortooyada Jolof ayaa la aasaasay qarnigii 14aad. Jolof waxay u kala jabtay faraacyo yaryar oo madax bannaan, kuwa oo kala ahaa Walo, Baol, Sine iyo Saloum. Boqortooyooyinkani waxay lahaayeen nidaamyo siyaasadeed iyo ganacsi oo horumaray, isla markaana saameyn ku yeeshay dhaqanka iyo diinta dalka. Senegal waxaa gumaystihii Faransiiska qarnigii 17aad, markii ay Faransiisku qabsadeen magaalooyin muhiim ah sida Saint-Louis iyo Gore. Faransiisku wuxuu dalka ka dhisay saldhigyo ganacsi oo ka ganacsan jiray addoommada iyo alaabaha gobolka, waxayna xornimada ka qaadatay Faransiiska sanadkii 1960kii iyada oo noqotay jamhuuriyad madax bannaan. Dhaqaalaha Senegal inta badan waxa uu ku tiirsan yahay beeraha, gaar ahaan beerashada miraha lawska, oo ah badeecad muhiim ah oo la dhoofiyo. Sidoo kale dalkan waxa uu ka faa'iidaystaa kalluumaysiga, macdanta sida fosfooraska, ganacsiga iyo dalxiiska xeebaha Atlantic. Inkasta oo dhaqaaluhu yahay mid u nugul isbeddelka qiimaha adduunka iyo abaaraha, beeraha iyo kalluumaysiga ayaa sii haya nolol maalmeedka dadka inta badan. Tan iyo xornimadii 1960kii, Senegal waxay qabatay doorashooyin nabdoon oo ay ku tartameen xisbiyaal kala duwan, taasoo suurtagelisay isbeddelka awoodda si nabad ah. Madaxweynayaashii hore sida Senghor waxay ilaashadeen xiriir wanaagsan oo dhex mara hogaamiyeyaasha diinta Islaamka iyo dowladda, taasoo yareysay khilaafaadka gudaha. Senegal waa bulsho leh qabaa'ilooyin kala duwan iyo dhaqan dulqaad badan, taasoo ka caawisay in khilaafaadka lagu xalliyo wadahadal iyo heshiis. Dalkan waxaa ku wada nool qabaa'ilooyin iyo kooxo kala duwan, kuwaasoo dhaqankoodu yahay dulqaad iyo wada noolaansho, taasoo fududeysay xallinta khilaafaadka iyadoo loo marayo qaab wadahadal iyo heshiis ku dheehan. Madaxweynaha hadda talada haya waa Bassirou Diomaye Faye oo ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dhacday 24kii Maarso sanadkii 2024. kadibna si rasmi ah xilka ula wareegay 2 Abriil isla sanadkaas. Wuxuu noqday madaxweynihii ugu da'da yaraa ee abid soo mara Senegal tan iyo markii ay xorriyadda ka qaadatay Faransiiska sanadkii 1960kii. Doorashadiisu waxay timid xilli ay jireen isbeddel siyaasadeed iyo baahi shacabka ka dhex jirtay oo ku saabsan hoggaan cusub iyo dib u habayn dowladeed. Doorashada Senegal waa mid si toos ah shacabku u codayaan, waxaana ku guuleysta musharaxa helaa in ka badan 50% codadka shacabka. Haddii musharaxna uusan helin aqlabiyad cad, waxaa la qabtaa wareeg labaad oo ay ku tartamaan labada musharax ee ugu codadka badan. Doorashadii sanadkii 2024, Bassirou Diomaye Faye wuxuu ku guuleystay wareeggii koowaad, taasoo muujisay taageero ballaaran uu ka helay shacabka. Muddada xilka madaxweynaha waa 5 sano, waxaana suuragal ah in mar kale dib loo doorto hal mar oo keliya. Senegal waa jamhuuriyad madaxweyne ku salaysan, taasoo micnaheedu yahay in madaxweynuhu yahay madaxa qaranka iyo madaxa fulinta labadaba. Madaxweynaha ayaa magacaaba golaha wasiirada, wuxuu hogaamiyaa siyaasadda guud ee dalka. Waxaa sidoo kale jira baarlamaan qaran oo ah hay'adda sharci dejinta, halka maxkamaduhuna ay yihiin garsoorka madax bannaan.
Nidaamkani wuxuu ku dhisan yahay dastuur qeexaya awoodaha iyo waajibaadka hay-adaha kala duwan si loo ilaaliyo isku dheelitirka awoodda dowladeed. Tan iyo markii ay xorriyadda qaadatay 1960kii, Senegal waxay caan ku noqotay degenaansho siyaasadeed marka loo eego dalal badan oo galbeedka Afrika ah, iyadoo si joogto ah u qabata doorashooyin iyo kala wareejis awood oo nabad ah. Arrintani waxay Senegal ka dhigtay mid ka mid ah dalalka dimuqraadiyadeed ee ugu xasiloon gobolka. Waxaana halkaa ku eg macluumaadkii aan ka diyaarinay dalkan dhaca galbeedka Afrika.